قدومي ku xiran tahay sidoo u shaqeeyo ma laga yaabaa in baarlamaanka laba garab ay noqdaan inaad dib u soo laabataan ma laga yaabaa golaha hadii la heshiiyay dadka Soomaaliyeed ku ma laga yaabaa Yusuf wareysteen inaad dib ugu soo laabataan ما يوسف wareystay horta Yusuf soo ma wareysan adigoo mucaarada ku ogeen horta Yusuf soo ma wareysan fadhiyada Yusuf wareysateen Yusuf wareystay hal iyo laba maxaa nooga sheegi kartaa waxay wadada sheegi hal iyo labo xoog way ma maxaa nooga sheegi kartaa gaar ay dhigateen soo ma hada horta caadi noo sheeg maadaama xildhibaan golaha shacabka ka adiga tirsan iyo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka beeshka golaha shacabka ku yaala waxaan ka wada hadal adiga noo hal iyo laba maxaa nooga sheegi kartaa beeshka golaha shacabka ku yaala no xildhibaan adigoo mucaaradka hogaaminaya ku ogeen hadda fil Hargeysa joogta waxa aad diidaneedeen in muddo kordhinta baarlamaanka iyo arrimo kale hadda halka waxa u maadeen bal shacabka Soomaaliyeed ha ku arkaan inta la gaarin qoraalka afka nooga sheeg way gudoomiyaha saab baa ku baaqay wuxuu yiri waxaan la kulmayaa xildhibaanada mucaaradka baaqi baan soo wadana ergana waa noo soo diray waa ajiibnay waa wada fadhiisanay maanta ice breaking ahayd waxyaabaha la isku haayane dib baa looga wada hadli doonaa ma ku soo laabanaysaa fadhiyada baarlamaanka hadii la heshiiyo waa lagu soo laabanaa hadii la heshiiyo hadda isla meel dhigteen hadii sharar kala la qaban doonaa oo wixii oo isku khilaafsan looga hadli doonaa laakiin nidaamka ayaa ka muuqatay gudoomiyaha baarlamaanka waa laga yaabaa Soomaaliya soo laabataan Soomaaliya xildhibaano laba garab ah oo kala qaybsan asagay ku xiran tahay gudoomiyaha ku xiran tahay sidoo u shaqeeyo ma laga yaabaa in baarlamaanka laba garab ay noqdaan inaad dib u soo laabataan ma laga yaabaa golaha hadii la heshiiyay hadii la heshiiyay soo laabanaysaa hadii la heshiiyay